madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista taariikhda Islaamka, farshaxanka iyo dhaqanka ee loo soo gaabiyey IRCICA oo qayb ka ah ururka iskaashiga Islaamka ee loo soo gaabiyey OIC Dr. Hailo Tirin. Kulankaas oo laga wada hadlayay arrimo la xiriira howlaha horumarineed ee taariikhda Islaamka iyo dhaqanka oo ay qaabilsan tahay xarunta IRCICA, waxaana madaxweynuhu sharaxaad ka siiyey taariikhda iyo dhaqanka dalka Soomaaliland. waxaana kulankaas lagu lafaguray sidii dhismayaal iyo dayactir loogu samayn lahaa goobaha taariikhda qadiimiga ee dalka Soomaaliland, khaasatan masaajidka qiblateenka ee magaalo xeebeedka Saylac iyo goobaha kale ee ansaarta qadiimiga ee Soomaaliland caanka ku tahay. ugu dambeyn, agaasimaha xaruntaasi waxa uu madaxweynaha uga mahadnaqay kulanka ay la qaateen, waxaana uu ku ammaanay Soomaaliland siday u ilaaliso taariikhda ansaarta qadiimiga ee dalka, isagoo sheegay Jamhuuriyadda Soomaaliland in ay ka mid tahay wadamada ay taariikhda Islaamku ku duugan tahay. Cabdiqaadir Cabdi Abdullaahi, Heerar TV, Hargeysa.